dhegeyso horta nasiib darro weeye annagoo saddex oo Soomaali ah oo ehel oo walaalo ah inaan maanta u kala jeedno Kenya fiican oo dad iyo dal naga haysata inna hadda qaadatay iyo ma fiicna waxa weeye waxba kama jiraan xuduudaha waxay u furtay adeer haddaan ku yiraahdo xabad nacnacaan ku siinayaa oo aan xaaskii caruurtii iyo beertii xoolaha kaala wareego oo aad tiraahdo Zakariya waa nin fiican oo xabad nacnac iga siisay intaas xuduudda waa la furayaa si ay dadkii dalka u qaadato sharaxda dheer soo dhista waa la leeyahay si ay dadkii dalka u qaadato laakiin still Soomaalidu shuftay ka tahay Kenya waana ogtahay walaalkay hadaas weeyna meesha joogo inta lagu laayo wuu ogyahay inta shufta loo laayo wuu ogyahay baba ka hadlay inta hadda dhulka ay haysato ay Zakariya waa taariikh ilaa maantay ay ka hadday inta waa soo waraaye arrinta diblomaasiyan ka tabtan kun baa ka shaqeeya min makhaayad ilaa aqoonyahan Kenyaati ah oo maaha Kenyaati Soomaaliya dadka Soomaaliya ay gumaysato maaha Kenyaati Zakariya Soomaalida gumaysto BBC ka hadlaysa live tahay erey qurxin diblomaasiyadda labada dal aan ka hadlayno maya meesha Zakariya warkii noo qurxi dood BBC aan wadna diblomaasiyad wuxuu ninkan sheegay ma ku khilaafsanta taariikh iyo shufta iyo Soomaalida gumaysto iyo ereyadaas ma ahan mawduucan ka hadlayno عطاشه ودن أفريقيا أو إنت أقفتي سوماليا هي ولا شيء لا في دولة إثيوبيا باسبورك إثيوبيا وحي يكون بحساب مالين بقبض سوماليا كوسيسا كإنتجريشن يأتميلات القصة ما يسوى وقاعدة صدق سوماليا وسياسة الدولة إنه عنده قرحية حلبان كدكتور كا وبروفيسور كاي ما سرنت لو وجهي حلمان Zakariya هاي سمينا الصور حلمان Zakariya باسبور إثيوبيا كما هلا لا ما باسبور إثيوبيا كما هلا الدبلوماسية لوضع الموضوع waxay ka ahayd dadka Soomaaliyeed dalka u socotay way joogtaa Kenya maanta haddaan la iska qabanna oo aan la iska muxuu ahaa muusinna xamar bay imanaysaa xamar Zakariya ereyada aan ku hadlayso dhan dooda BBC da uma fiicno mar saddexaadan ku sheegaya xamar ali haddaan la iska muusin iyo BBC aan ka hadlayna fadlan mawduuca aan qurxisano xillan Zakariya bikulli ihtiram mawduuca diblomaasiyadeed iyo xiisada labada dal aan ka hadalno waxaan u baaqayaa Cabdi Ismaaciil Samatar waaye dawladda Kenya dawladda Soomaaliya dawladda Kenya dawladda Soomaaliya waxa dhex maray wax weyn weeye waa wax bad dacwadeed socoto weeye BBC waa saddex bada ku ekaa shuftay iyo xamar la iimaanaya iyo inaga daa iyo taariikh hore 60kii inaga daa horta Cabdirasaaq oo anigu BBC waxay rabto sheegi maayo waxaan anigu rabo oo run ah oo ummadda Soomaaliyeed rabto baan sheegayaa hore mar dambe ay dhihin BBC ma rabtay Ingiriisku ma rabo Ingiriisku ninkii dalkayga bixiyay weeye waxa soo haray waxa wasaaraddu tiri kulligeed waa run wixii hadaysan run ahayn xiriirka uma aysan jarteen anuguna waxaan qabaa in dawladda Kenya meesha hadda ay marayso haddaan fiiri darbigii la ogaa waxaad inkareysaan fiiri adiga iyo doctorkuba Omar darbi baan dhisaynaa bay yiraahdeen sida Falastiin iyo Israa'iil oo aad ogtahay jeexeen soo ma garan waxay ku duqeeyaan helicopter gunships daily dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waxay gabtay oo ka daahday inay mar hore tallaabo qaado saddex sano iyo barbaan ka hadlayay arinta waxaan Zakariya 5 sano ka horeysana waa ka hadlayay Zakariya maanta hadday line-kaygii qabsatay khayr weeye Zakariya laakiin waa inay ku dartaa waxay dumisana in loo sheegto Zakariya waxaan rabaa waxa weeyaan walaalow horta maalin cadayn aan BBC umayso maalin walba inay Kenya dadlayso hadalka waxaan rabaa in xaqiiqda laga aado mawduuca hadda aan ka hadlayno waxyaabo hore oo dhacay ma information-ka naga qaado BBC waa idaacade information kan naga qaado laakiin cadayn wallahi waa dadkii billahi sallah ma maalin walba ciidan dadlayo dhan bay dhageysanaysaa ma waxa leedahay been sheego BBC ku xurmee laakiin waxaan rabaa wixii inay cadayn yeelato idaacadan ka hadlayna Zakariya mawduucan ku soo noqon su'aasha iga jawaab adduunka Guardian ka akhri waxaad ka akhrisaa Reuters waxaad ka akhrisaa joornaalada Soomaalida waxaad ka akhrisaa Somali Star su'aasha jawaabteeda aan u imaan cadayn ma lahayaa in madaxweynaha rasaasta lagu laayay aad rugacdi dhageyso way jirtay brownka lagu laayay waana ka hadalnay wax mar hore ahayd lagu seenayo waa aragtay mar hore ahayd waana ka hadalnay BBC da way sheegtay xoolo la laayo gada lagu laayay dad la laayay waan sheegnay mawduucan ma ahan Zakariya mawduuca aan ka hadlayna ka ma ahan sida kale balance of payment dhageyso
balansiga dhaqaalaha oo ka hadlay walaadkan xildhibaankan Soomaalida laakiin kii u shaqeynaya waxa weeye Dr. Omar hadda erayga fiiri balansiga dhaqaalaha Kenya ayaa hadda naga badsata annaga maynisa iyadu waa balance qof kasta Soomaaliya maadaama dalka burbursan yahay kii maal gashada qof kasta Soomaaliya dastuur ka dhigta qaadka way keentaa ayaga ayaa lagu qaba haye su'aasha aan ku soo noqono Zakariya iyadu lacag ma siiso iyo intaas si shaqaalahooda ka shaqeeya moogtahay kumanaan shaqaalaha ay leeyihiin ma ka shaqeeya Zakariya su'aasha aan u soo noqono dooda inay naga faaftaan diidanahay cadayn ma lahayaa dawladda Kenya inay Jubbaland ku cadaadinayso inqilaaf ay geliso doorashada su'aasha way cadda xilman Zakariya bikulli ihtiram وزارة arrimaha dawladda sida sheegtay waa taas weeye adiga ka cadeyn waa ma san inta ka rabaa waa ma san wazaaradda waa sheegtay waa ma san